maanta waa maalintii saddexaad oo guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dawladda uu ka qayb qaadanayo barnaamijka isxilqaan. waxaan saaka soo galnay 8 halkan inaan hawshii isxilqaan aan ka qayb qaadano. si fiican ay hawsha u socotaa. aad iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa tiimka isxilqaan ka shaqeeya oo ka koobma xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda shaqada iyo howlwadeeno kale iyo wasaaradda warfaafinta. si fiican bay iskugu dubirideen. runtii shaqo lagu faano ayay qabteen. waan ugu mahadcelinayaa dhammaantood. marka aad u fiiriso maanta kormeerkii aan ku tagnay tiyaatarka, runtii waxaa meeshaas ka cad in ummadda Soomaaliyeed ay wax qabsan karto, ayadoona isku tashan karto, cid kale ayadoon u gacan hoorsan ayay isku tashan kartaa. wax badan oo maanta ka bedelan baan ku soo aragnay. runtii waana arrin lagu farxo. shaqaalaha dawladdana kaalintii ayaga looga baahnaana runtii way ka soo baxeen. waxaan rajaynaynaa meelaha ka dhimana sidaas isla mid ah inaan ayadana ay u dhammaystirmi doonto. shaqaaluhu wax ma qabtaan, dadka Soomaaliyeed waxba ma qabsan karaan. halkaas ayay nooga hartay. runtii ciddii soo abaabushay oo madaxdii noogu horseedayna runtii aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin. dadku wax waa qabsan karaan, shaqaaluhu hawl waa qaban karaan. taasaana daliil u ah keliya in lagu dardargeliyo, lagu hogaamiyo, loo tilmaamo keliya ay u baahan yihiin ummadda iyo guud ahaan shaqaalaha rayidka ee dawladda. sidoo kale waxaan tagnay ayadana maktabadda oo runtii si fiican ugu bilowday oo ayadana dayactirkii iyo howlaheeda ayadana socdaan. dhammaan howlaha ka socdana waa howlo runtii la taaban karo. waxaan rajaynaynaa in qaybaha kale oo dhimana sidaas la mid ah ay ku soo dhamaadaan. waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu gudbiyo hay'adaha dhammaan iyo wasaaradaha shaqaalaha ka howlgala. mararka qaarkood cabasho waxaa ka timaada in isxilqaan markii la soo aadayo in meelaha qaarkood tirada dadka ka imaanaya aad u yar yihiin. waxaan codsanaynaa in warbixin la soo gudbiyo si loola socdo dadka barnaamijka madaxdu amartay oo dalka dib u dhiskiisa iyo hagaajintiisa looga hadlayo. cidda ka cagajiidaysa ama is imaanayno shaqaalaha dawladda ah ama shaqaale ah oo dawladdii nidaamkeedii iyo aan u hoggaansamin in la soo warbixiyo si loola socdo waxa ku qasbay in shaqaalihiina bar ay tagaan hawshii loo xilsaaray, kuwa kalena ay ka haraan. marka aad iyo aad aan u codsan lahayn. cabashooyinkaasi dhowr jeer ay soo noqdeen. si arrintaasi loo xalliyo waxaan codsanaynaa hay'adaha arrimahaasi quseeya inay noo soo gudbiyaan warbixinta shaqaalaha aan soo xaadirin barnaamijka isxilqaan markii hawsheeda ku jirto. waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinayaa howlwadeennada isxilqaan iyo dhammaan shaqaalaha rayidka ee dawladdu sida xilkasnimada ay hawshaan ay ugu qayb qaateen. waxaan rajaynaynaa inaan halkan ay joogto aan kasii socon doono. horumar iyo barwaaqan isu rajaynayna insha Allah iyo dhismayaashan oo si qurux badan ay ku dhamaadaan waqtiga dhow insha Allah.